واللبدا بيش الربيع الثاني سنة كنا فربقنا فرطني يتضبط تاريخ ده هجرية وفي نمو 4 خميس يسوق ليس وانا أفري لباتن كبيش سجالات سنة لبكون شاني لباتن qodobada ugu waaweyn barnaamijkeena fiidnimada waxa kamida xuutiyiinta dalka Yemen ayaa weerarkii ugu ballaarnaa qaaday caawa iyagoo gubay qayb muhiim ah oo ka tirsan magaalada Elid ee ka tirsan koonfurta Israa'iil warbixin yaab leh dabka halka qabsaday iyo droonada ay ku weerareen xuutiyiinta aynu isla eegi doonaa iyo waxyeelada weerarka u geystay qodobada sidoo kale caawa barnaamijka aad ku maqli doonto iyana waxa kamida warweyn ayaa ka soo yeeray durbaba natiijadii ka dhalatay kulankii shalay dhexmaray qaar ka tirsan madaxda dawladaha muslimiinta oo ay ku jireen Erdogan iyo Trump oo markaa la kulmay madaxdaasi waxa hadda la tilmaamayaa in la isku raacay qaab qorshe xabad joojina oo qazal lagu wajahayo xaaladeeda macluumaad arinta ku saabsan ayaan dul istaagi doonaa dhanka kale madaxweynaha dalka Indonesia ayaa ku dhawaaqay in 20,000 oo askari reer Indonesia qaza ay u diraysa Indonesia si loo caawiyo dadka reer qaza waryaab leh oo ka jeediyay qaramada midoobay madaxweynaha Indonesia ayaan isla eegi doonaa iyo ujeedka oo 20,000 ciidan ay ugu diraysa Indonesia oo dalka muslimiinta ugu badan adduunka ay ku nool yihiin qodobada sidoo kale aad maqli doonto iyana waxa kamid ah madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isna maanta waxa ku dhacday tii shalay ku dhacday madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo kale kadib markii kolonyadii madaxweynaha dalka Turkiga dariiqii u maray magaalada New York laga xiray si madaxweyne Trump halkaas uu maro Erdogan isla maanta halug ayaa ka dhacday muuqaal iyo warbixin arta ku saabsan ayaad maqli doontaa qodobka ugu dambeeyana waxaan idinku hayaa Soomaaliya Muqdisho maanta dagaal ayaa ka dhacay oo waqti kooban socday oo u dhaxaya mucaaradka iyo dawladda federaalka iyadoo la sheegay qof in lagu dilay dad kalena lagu dhaawacay waxaynu dul istaagi doonaa warbaahinta caalamka waxa ay ka qoreen iyo waxa gudaha dalka ay arintaasi ka leeyihiin warbaahinta iyo guud ahaan xaaladda hadda sida ay tahay ku bilowna barnaamijkeena fiidnimo caawa xuutiyiinta dalka Yemen ayaa qaaday weerar halis ah kaas oo ay ku beegsadeen koonfurta Israa'iil gaar ahaan deegaanka Eled oo goob dalxiis goobta ay weerareen ayaa la sheegay xilligaas inay ahayd xilli ay ku sugnaayeen dad dalxiisayaal ah waxa la sheegay 19 qof in ay ku dhaawacmeen weerarkaas loo adeegsaday drone-ka ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kadibna sababtay qarax weyn oo hararaha goobtaasi wada qabsaday qaraxa ayaa laga maqlay inta badan deegaanada Eled ilaa hadda lama xaqiijin tirada dhimashada laakiin waxa sidoo kale la sheegay inay dadku dhinteen xuutiyiinta ayaa hore u ballan qaaday in Israa'iil ay marnaba degi doonin kana badbaadi doonin weerarada xuutiga ilaa inta Israa'iil ay ku jirto gudaha marinka Gaza xuutiyiinta ayaa hore u sheegay shuruudda kaliya oo ay ku kala badbaadi karaan iyaga Israa'iil inay tahay in militariga Israa'iil ay ka dagaalamay gudaha Gaza ay joojiyaan weerarada ay ka wadaan dhulka reer Falastiin si ay iyagana u joojiyaan weerarada ay Israa'iil ku beegsanayaan xuutiyiinta ayaa adeegsanaya drones la sheegay in ay gaarayaan goobo muhiim ah oo ku yaala gudaha Israa'iil iyo sidoo kale gantaalada ridada dheer leh Israa'iil hore waxay ugu eedeysay in xuutiyiintu ay gacan saar la leeyihiin Iran si looga adkaado xuutiga Israa'iil waxa ay sheegtay inay u baahan yihiin inay beegsadaan Iran ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isbuucan kulan la qaatay saraakiisha ugu sareysa ciidankiisa waxa uu u sheegay inay isku diyaariyaan dagaal ballaaran oo ay la galaan dalka Iran madaxweynaheeda oo isna ka hadlay qaramada midoobay shirka loo fadhiya ee kulanka 8aad ee UN-ka waxa uu ka hor sheegay Masoud Pezeshkian in Israa'iil ay tahay nidaam argagixisa oo adduunka dhibaato ku hayo waxa uu ku eedeeyay Israa'iiliyiintu ama ciidanka Israa'iil ee Gaza ka dagaalamaya maalin walba in ay dilaan qaar badan oo ka tirsan caruurta reer Gaza waxa uu sheegay in loo baahan yahay in arintaasi adduunka uu ka garaabo oo dadka reer Gaza laga badbaadiyo bahalada uu cunayo Israa'iil waxa adduunka loo aqoonsaday gaar ahaan qaramada midoobay qaar ka tirsan hay'adaheeda waxa ay sheegeen waxa ka socda Gaza inay tahay xasuuq iyadoo ra'iisul wasaaraha Israa'iil ay raadinaysa maxkamadda dambiyada dagaalka ICC iyadoo maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ dacwo laga gudbiyay guud ahaan Israa'iil si kastaba ha noqotee weerarka xuutiga maanta ee 19 qof ay ku dhinteen
qaar kale ay ku dhaawacmeen. Xuutiyiintu waxa ay sheegeen in weeraradan iyo kuwa kale oo badan Israa'iil ay ku soo socdaan. Horey Xuutiga waqtiyadii horeysay waxa ay beegsadeen eerabooro muhiim ah oo ku yaala gudaha Israa'iil oo uu ka mid yahay Ramos oo eeraboorka labaad ee ugu weyn Israa'iil iyo sidoo kale eeraboorka ugu weyn Ben Gurion, taas oo sababtay in saacado badan iyo maalmo badan ay shaqadii eerabooradaasi hakadaan, taas oo la sheegay dhaqaalaha Israa'iil inay aad u saameynayso. Hadda goobtan ay beegsadeen dalxiiska waxa la sheegay inay saameyn karto dalxiisayaasha iyo dadka soo aado gudaha Israa'iil, iyadoo hadda la sheegaya dadkii ugu badnaa taariikhda Israa'iil tan iyo 1948 intii ay bilowday Israa'iil inay dhulka reer Falastiin soo degaan. Waxa hadda lagu waramayaa dadkii ugu badnaa inay ka baxayaan gudaha Israa'iil oo ay noqonayaan qurba joog ama meelihii ay ka kala yimaadeen ay ku noqonayaan. Sida ay warbaahintoodu qorayso, tirada dadka banaanka uga baxaya gudaha Israa'iil ayaa ka badan tirada dadka soo galaya. Waayo qaybta markaynu meesha ugu gudubno walaalaha qiimiga leh waxaynu toos u galeynaa kulankii dhexmaray dowladaha muslimiinta oo uu ku jiro Erdogan iyo kuwa kale, isla markaana ay la kulmeen madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. maanta waxaa ka soo baxay war weyn kaas oo la sheegay inuu ku saabsan yahay qorshe Mareykanka iyo wadamada muslimiinta ay isla gorfeeyeen, kaas oo sheegaya in 20 maalmood oo xabad joojin oo degdeg laga hirgelinay Gaza kadibna looga gudbay xabad joojin waarta oo lagu joojinaya gabi ahaanba dagaalka Gaza. sidoo kale waxa ay warbixintu sheegaysaa in la sii deyn doono dadka Israa'iil laga haysto, laakiin warbixinta kuma caddo tirada dadka Israa'iil loo sii deynayo iyo inta ay qaadanaysa sii deynta dadkaasi. laakiin waxa ay warbixintu sheegtay in lama huraan ay tahay in degdeg miiskii wada hadallada loogu noqdo. qorshahan Trump iyo dowladaha muslimiintu ay isla garteenna loo bandhigo Hamas iyo Israa'iil. Hamas ayaa hore isbuucan waxay u sheegtay inay diyaar u tahay xabad joojin 60 maalmood kadibna looga gudbo mid rasmi ah, waa haddii la helo in la damaanad qaadayo in Israa'iil ballanqaadyada ay oofinayso kadibna iyagu ay soo deynayaan dadka Israa'iil ay ka haystaan, waa haddii la damaanad qaado in militariga Israa'iil Gaza ay ka wada baxayaan, ciidankoodana ay joojinayaan burburinta iyo dagaalka ay ku wadaan dadka reer Gaza. warkan ku saabsan in qorshe xabad joojin Gaza laga hirgelinayo waa faaladii iyo rajadii ugu weyneed isbuucyadii ugu dambeysay soo baxdo, waxaana macno weyn u yeelayo kulanka ay yeesheen dowladaha awoodda leh sida Pakistan, Turkiga, Indonesia, Sacuudiga iyo Qatar iyo kuwa kale oo la kulmay Trump. waxa la arkayay shalay amiirka dalka Qatar oo si toos ugu sheegay madaxweyne Donald Trump in la joogo xilligii Israa'iil laga qaban lahaa dadka reer Falastiin iyo guud ahaan xaaladda bini'aadanimo ee aadka u daran ee ka jirta marinka Gaza. waxa ay dowladahaasi u sheegeen in Trump iyo maamulka Mareykanka ay mas'uuliyad ka saaran tahay in xaaladani ay toos u soo faragishtaan. dowladaha muslimiinta ayaa u muuqda hadda inay qaati ka taageen ama meel adag ay ka taageen xadgudubyada waxa loogu yeeray Israa'iil ay ka wado marinka Gaza. si kastaba ha noqotee waxa la sugayaa hadda in loo gudbiyo Israa'iil kadibna ay ka soo warceliyaan ama ay ka soo jawaab celiyaan Hamas, sidoo kale in loo gudbiyo iyagana ay ka soo jawaab celiyaan. miyaa la aqbali doonaa miyaa la diidi doonaa? Netanyahu kooxdiisa waxa lagu yaqaanaa inay waqti qaataan qorshe walba oo loo soo bandhigo, maalmo kadib haddana ay la imaadaan marmarsiyo aakhir ku dhamaanaya inuusan hirgelin. cabsida ugu weyn ee jirta waxa ay tahay xitaa haddii ay aqbalaan oo Israa'iil sheegtay inay u hoggaansamayso qorshahaasi lagu hirgelinayo xabad joojinta, haddana dhibaatada jirta waxay tahay see lagu aaminayaa in Israa'iil ballamada ay gashay oo oofinayso. waa doodaha ugu waaweyn ee hadda taagan aan la xaqiijin karaynin. waayo walaalaha ay saaxiibada qiimiga leh qaybaha markaynu meesha uga gudubno waxa inoo soo socda 2 qodob oo xiiso leh ilaa 3 qodob. mid waxa uu ku saabsan yahay Erdogan maanta waxa qabsaday wixii ku dhacay Emmanuel Macron oo kale, waan isla eegi doonaa muuqaalna waan idinkaga hayaa. sidoo kale waxaan isla eegi doonaa madaxweynaha dalka Indonesia oo sheegay 20,000 oo ciidamada reer Indonesia inay Gaza aadi doonaan. sababtu maxay tahay? wuxuu leeyahay gabdhaheena iyo wiilasheena ayaan ugu deeqaynaa si loo badbaadiyo reer Gaza. iyadoo faahfaahsan ayaad maqli doontaa iyo dagaalka maanta ka dhacay Muqdisho. waxaynu soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena fiidnimo caawo habeenimo ay Khamiis soo galaysa Arbacana ay sii baxayso. aynu ku bilowna madaxweynaha dalka Indonesia
oo sheegay inay Indonesiaanku diyaar u yihiin dowladiisu in ay u diraan Gaza 20,000 oo ciidan haddii UN-ka uu ka hirgelinayo Gaza xabajoojin isla markaana si nabadda loo sugo. waxa uu sheegay Indonesia in ay qayb ka noqonayso waliba ay u diyaarisay ama ay diyaar u yihiin in wiilashooda iyo gabdhahooda ay ka qayb qaataan sidii loo badbaadin lahaa dadka reer Gaza. waxa ugu baaqay UN-ka inay isticmaalaan awoodooda sharci iyo midooda ciidan si loo gaaro xal waara oo laga gaaro xiisadan aadka u daran iyo dhibaatada lagu hayo dadka reer Gaza. madaxweynaha dalka Indonesia Prabowo Subianto waxa uu sheegay in dadka reer Gaza ay u baahan yihiin in degdeg loogu gargaaro xaaladda hadda ka taagan Gaza iyo xasuuqa Israa'iil ay wada. waxa uu sheegay inay tahay mid aan la aqbali karaynin dunidana ay si daawan karaynin. Indonesia waa dalka ugu dadka muslimiinta badan caalamka, tirada ugu badan ee muslimiinta adduunka ku nool wadanka ay ku nool yihiin marka dalalka kale la barbar dhigo waa dalka Indonesia. Indonesia ma ahan dal siyaasad ahaan adduunka khilaaf siyaasadeed iyo galo waxyaabaha siyaasadaha caalamka. waa dal ku mashquulo dhaqaalaha iyo horumarinta. waxaana la sheegaa inuu ka mid yahay dalalka dhexdhexaadka ah. waxaana la sheegaa inay Indonesian ka mid yihiin Malaysia dalalka horumarsan ee muslimiinta ah. laakiin waxa uu sheegay madaxweynaha dalka Indonesia inaan la adkeysan karaynin cid damiirla ay ka seexan karaynin waxa ciidanka Israa'iil Gaza ay ka wadaan. waayo walaalaha qiimiga loo qodobka qaybaha ugu dambeeya wararka caalamka intaanu qayb Soomaaliya gelin. madaxweynaha dalka Turkiga aan isla eegno Recep Tayyip Erdogan maanta magaalada New York sida idinkaga muuqata muuqaalkan waxa ku dhacay tii ku dhacday madaxweynaha dalka Faransiiska Macron oo kale. Macron shalay jidka laga xirtay isagii kulanyadiisi kadib markii Donald Trump la sheegay inuu halka marayo. booliisku way diideen gaarigii Macron inuu meesha maro. waxay ku qasabtay inuu waco Donald Trump waxba ka qaban karo. Macron wuu lugay. maanta tii waxa qabsatay Erdogan wuxuu ku qasbanaaday in uu istaago kulanyadiis. booliiskuna uu weydiiyo waxba kama qaban karaan, waa sharci. waa inaad u lugaysaa meesha u socotid ama aad sugtaa intuu Trump meeshii loogu talagalay uu ka tagayo aqalkiisa ka galayo. waxay ku noqotay sheeko yaab leh adduunka. madaxda Soomaalida markay safrayaan dadka Muqdisho waxay aad u dhibsadaan jidadka loo xiro ama wafdi markuu imaanayo jidadka la xiro. New York hadda sheekadaas ka bilaabatay. Trump madaxdii waa ka yaabiyay. Erdogan waxa la sheegay inuu arintaasi aad u dhibsaday oo raali uga noqonin, laakiin ugu dambeyn wuxuu ku qasbanaaday in ilaa iyo inta laga baxayo ciriiriga goobtaasi uu ka lugayo markii hore gaarigiisa uu ka soo degay. waayo walaalaha ay saaxiibada qiimiga leh shirkan hadda ka socda magaalada New York ee qaramada midoobay waxa la sheegay markan waa qaybtiisii ama sessionkiisii kalfadhigiis 8aad. waana sanad kamida sanadyadii ugu maartay buuqa badnaa. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu isagoo qudbaynayo ayaa qudbadii looga kala tagay shalay. qudbadii looga kala baxay. dadka qaarna way ku ooriyeen. madaxdii qaar ka baxdo oo yasto iyo qaar qudbadii oo dhan uu hadli waayay illa lagu ooriyo oo macnaha uu wareeray Nikolai Netanyahu jahwareera ku dhacay. waaye saaxiibada qiimiga loo qaybta ugu dambaysa barnaamijka maanta Muqdisho waxa ka dhacay dagaal la sheegay ama isxabadayn ciidamada dawladda iyo mucaaradka. ciidamo ay wateen madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Ahmed iyo ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre Abdiraxmaan Shukuur. meeshaas waxa la sheegay in buuq uu ka dhacay kadib isxabadayn ay dhacday. marka warar kala duwan ay soo saarayaan horta waxa la xaqiijiyay wiil ka tirsanaa kooxda ama ciidanka darawalkii Xasan Cali Khayre in halkaasi lagu dilay ayaa la sheegay. sida uu Xasan Cali Khayre isaga leeyahay wuxuu leeyahay wiilkii aniga gaariga ii saarnaa ay saban ku dhufteen buu dhahay ilaa barxadda Siinaay ay xabada nagu socotay. waa sida Xasan Cali Khayre uu leeyahay in la laayo ayay ujeedada ahayd. dhinaca kale Cabdiraxmaan Shukuur isna hadlay wuxuu leeyahay dadkii la dhibaateeyay ehelkooda ayaana dhahay odaygii la jir dilay ayaa xirnaa naga damiinta saldhiga sidaas ayaan u tagnay meesha Macalin Mahdi isaga ayaa xirtay albaabka xabadana nagu bilaabay. maxaa marka taas keenay? Macalin Mahdi wuxuu dhahay waa taliyaha booliiska. wuxuu leeyahay ciidanka hubeysan ee sharci darrada ku socday wuxuu leeyahay ciidan hubeysan oo sharci darro ku socda ayaa isku dayay inay xoog ku galaan saldhiga booliiska.
warar kala duwan soo baxa laakiin isku soo duub dawladda warqaday soo saartay dawladda Soomaaliya waxay leedahay dawladda Soomaaliya waxay cambaaraynaysaa fal lagu carqaladaynayo amniga caasimadda oo ay uga jeedo mucaaradka maanta dagaal ku dhex maray Muqdisho warqadda waxay leedahay 24 September oo maanta sanadka 2025 dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay cambaaraynaysaa falal lidii ku ah amniga caasimadda oo ay ku dhaqaaqeen xubno siyaasiyiin ah oo doonayay inay xoog kula wareegaan saldhigga booliiska ee degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya waxa ay ka xuntahay in siyaasiyiin ku haminaya qabashada talada dalka ay isku dayaan inay daadiyaan raalli ahaada dhiigga shacabka iyo kan ciidamada qalabka sida ee ku howlan difaaca dalka iyo deegaanka macnaha dawladdu waxay leedahay nimanka iyagaaba warqada cid u baahan waxay ka heli karaan meel walba muhiimadda waxa waaye nimankan mucaaradka iyaga bilaabay leeyihiin mucaaradkina waxay leeyihiin dawladdiya bilowday dawladdiina mucaaradka bilaabay ay leedahay saldhigi Warta Nabadda ay rabeen xoog inay ku galaan mucaaradka ma diidan inay meesha tageen laakiin waxay leeyihiin macluumaadya noo diiday si kastaba ha noqotay ilaa hadda inta aanu ka warqabno hal qof ayaa ku dhintay laba gaarina waa la sheegay mid in burbur uu gaaray mid kalena sida wararka ay sheegayaan inuu gubtay ay sheegayaan oo ay wateen mucaaradka